bal ka waran haddii ay dawlad ku xadgudubto dawlad kale oo ay u aragto cadawgeeda maxaa ka dhalan kara ficilkaas sida caadiga ah waxaa sii kordhaya xiisadda siyaasadeed ee labada dhinac waxaana hawada la isku marinayaa eedeymo culculus cambaarayno caalami ah ayuuna caalamka u jeedin doonaa dawladda xadgudubka wadda golaha ammaanka ee New York fadhiya ayaana ku baaqi doona in labada dawladood ay isxakameeyaan haddii xiisaddu ku hakan weyso intaa waxaa xigi doona in labada dawladood ay xiriirka isku jaraan kadibna miiska wada hadalka lagu xalliyo dhanka kale waxaa suuragal ah in xiisaddu ay ku biyo shubato gacanka hadal iyo colaad toos ah oo dhex marta labada dawladooda xaaladda ayaase isbedeli kartaa haddii dawladda xadgudubka la kulantay ay xubin ka tahay gaashaanbuurta NATO dawladda xadgudubtay isla waqtiga ficilkeedaas waxa ay dhexda ka geli doontaa musiibo culus iyadoo ay suuragal tahay in laga masaxo qariiradda adduunka oo dhan waxayna sababsan kartaa qodobka shanaad ee heshiiska gaashaanbuurta NATO ee loo yaqaan heshiiska difaaca wadajirka ah qodobkaas ayaana u dhigan sida tan weerar kasta oo ay la kulanto mid ka mid ah dawladaha xubnaha ka ah NATO waxa uu la mid yahay weerar lagu soo qaaday dhammaan xubnaha gaashaanbuurta bal wax yar dib aan u milicsano waxa laga yaabaa in aad ku wareersan tahay waxa lagala jeedo gaashaanbuurta NATO North Atlantic Trade Organization ururka isbahaysatada waqooyiga badweynta Atlantikada waa gaashaanbuur military oo samaysantay kadib dagaalkii labaad ee adduunka waxaa la aasaasay sanadii 1949 xaruntoodu waa magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka waxaana aasaasay 12 dawladood oo ayna horkacayeen Mareykanka Faransiiska Ingiriiska iyo Belgiumka hadafka amaba ujeedada koobaad ee ururkani waxa uu yahay ilaalinta xorriyadda iyo madaxbannaanida dawladaha xubnaha ka ah kadib dagaalweynihii labaad ee adduunka waxaa soo ifbaxay dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyey dawladdii midowgii Soofiyeed iyo Mareykanka si loo horjoogsado isballaarinta dawladdii Soofiyeedka iyo ideolojiyadooda shuuciyadda ah oo ku fidaysay wadamada bariga Yurub dawladaha ku bahoobay gaashaanbuurta NATO waxa ay bilaabeen samaynta gaashaanbuurta si lamida Soofiyeedku waxa ay go'aansatay in ay jawaab adag ka bixiso isgaashaanbuuraysiga reer galbeedka waxaana magaalada Warsaw ee dalka Poland lagu aasaasay gaashaanbuurta loogu magac daray magaalada lagu aasaasay ee Warsaw gaashaanbuurta Warsaw waxa uu Soofiyeedku ku daray jamhuuriyadda dimuqraadiga Jarmalka ee loo garan og yahay Jarmalkii bari quwadihii galbeedka ayaa iyagana gaashaanbuurta NATO ku soo daray jamhuuriyadda federaalka Jarmalka ee loo yaqaan Jarmalkii galbeed magaalada Berlin oo labada daan u qaybsanayd ayaa noqotay magaalada qura ee ku kala abtirsata labada quwadood ee loolanka adag uu ka dhaxeeyo waana caqabadii ugu weyneed ee hortaagneed midowgii labada Jarmal kadib burburkii Soofiyeedka sanadii 1991 oo keentay in lagu kala dareero gaashaanbuurta Warsaw dagaalkii qaboobaa ayaa isaguna halkaasi ku soo idlaaday markan waxa isbedelay qorshe howleedkii NATO gaashaanbuurta ayaana noqotay mid fulisa howlgallo military oo fara badan oo ay ugu caansanaayeen xoroyntii Kuwait kadib qabsashadii Saddam Hussein sanadii 1990 in ka badan nus milyan ciidamada NATO ayaana loo daabulay si ay qayb uga noqdaan dagaalka gacanka dagaalkii Bosnia sanadii 1995 iyo dagaalkii Kosovo oo dhacay sanadii 1999 iyo sidoo kale 2001 kadib weeraradii 11 September gaashaanbuurta ayaa Mareykanka ku garab siisay dagaalkeedii ugu dheeraa abid iyagoona ku wajahay kooxihii islaamiyiinta ee Al-Qaacida iyo Taliban gudaha dalka Afghanistan sanadii 2003 gaashaanbuurtu waxa ay gashay dagaalkeedii ugu cuslaa waana duulaankii Ciraaq ee xilka looga tuuray madaxweynihii geeriyooday ee dalkaasi Saddam Hussein sanadii 2009 gaashaanbuurta ayaa markan u jeeysatay dhanka iyo badda iyagoo bilaabay howlgallo lagu baacsanayay burcadbadeedii Soomaalida ee xilligaasi sida xawliga ah kaga qowlaysan jirtay badweynta India iyo gacanka cadan bilihii Maarso ilaa Oktoobar sanadii 2011 diyaaradaha dagaalka gaashaanbuurta ayaa duqeymo ka waday dalka Liibiya si xukunka Qadaafi meesha looga saaro maanta gaashaanbuurta NATO waxa ay ka kooban tahay 30 dawladood waxaana lagu tiriyaa cududda ciidan ee ugu taagta iyo tabarta badan caalamka
miisaaniyadda difaaca ee dalalka gaashaanbuurta NATO ayaana ka badan 1 trilyan oo dollar. wadarta ciidamada gaashaanbuurta NATO ayaa maanta kor u dhaafaysa 3 milyan oo askari, tobaneeyo saldhigyo militari oo badda iyo beriga ah oo ay si isku dhafan ugu sugan yihiin. ciidamada dawladaha ku bahoobay NATO ayaa ku yaala dalalka dawladaha xubnaha ka ah gaashaanbuurta iyo xulafadooda. gaashaanbuurtan ayaana ku qalabaysan saanada difaaca ee ugu casrisan caalamka, kuwaasoo isugu jira kumanaan diyaaradaha dagaalka iyo gaadiidka gaashaaman, gantaalada qaaradaha ka tilaaba ee magacooda loo yaqaano ICMP, maraakiibta xambaara diyaaradaha iyo gujisyada badda hoosteeda ku quusa. 3 ka mid ah xubnaha dalalka gaashaanbuurta NATO ayaana haysta hubka waxgumaada ee nukliyeerka. gaashaanbuurta NATO ayaana ku naaloonaysa haysashada codka aqlabiyadda ah xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka qaramada midoobay. dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa ah 3 ka mid ah 5 dal ee xubnaha joogtada ku leh golaha ammaanka qaramada midoobay, waana 3 dal oo ka mid ah gaashaanbuurta NATO. iyadoo ay jirto farqiga saanada militariga, ku horeynta dhaqaalaha iyo siyaasadda ee gaashaanbuurtu kaga horeyso cid waliba, haddana weli gaashaanbuurta NATO uma suuro gelin in ay si dhab ah u go'aamiyaan habka iyo qaab siyaasadeedka guud ee caalamka.